بسم الله الرحمن الرحيم داوديال ku soo dhawaada muuqaal kooban inuu ku eegi doono maxay tahay sababta Najma Nashaad oo ilinta u ceeshan weyday kadib markii ay heshay ninka la yiraahdo Bashiir Hanuuniye si shooga ay isku guursadeen arintan aynu falaqeyn doonaa sidoo kale waxaynu eegi doonaa soobaha ay saaxiibkooda hore ay u kala tageen ayna markaasi dabcan dadka baraha bulshada isticmaala aad ku hadalhayaan waxaynu eegi doonaa Bashiir Hanuuniye maxay uga dhigan tahay inuu guursado Diamond yar oo ay wada baadagoobayeen dhammaan ragga Soomaaliyeed waxaynu eegi doonaa Cawaale Dayr muxuu arintan ka yiri daawadayaal ku soo dhawaada muuqaal kooban inuu ku eegi doono warbixintan yar oo Najma Nashaad ku saabsan waxaan idin codsanayaa YouTube-ka aad ku cusub tihiin noo subscribe gareeya sidoo kale tana laagta idinka dhankiina wayaan haddii aanu ku bilaabno daawadayaal Najma Nashaad muddooyinkii ugu dambeysay baraha bulshada aad ay u haystay iyadoo sidoo kale tana la soo warinayo in Bashiir Hanuuniye ay isguursadeen maalintii shalay ahayd taariikhda markay ahayd 25 Juun 2022 maanta waa 26 wayaan dadka baraha bulshada isticmaalaha ayaa aad iyo aad arinta markaasi shoog u noqdeen ama ay la yaabeen iyadoo Bashiir Hanuuniye iminkan uu yahay nin markaasi dabcan toddoba ku jira sidoo kale Bashiir Hanuuniye waxa leeyahay waa nin aad u nasiib badan maadaama isku helay dabcan farxiifiska uu hore u qabay laakiin uu furay laakiin iminkan waxa uu qabaa Diamond yar ee lagu magacaabo Najma Nashaad Bashiir Hanuuniye oo arinta ka hadlay waxa uu yiri runtii waxaan helay gabar aad u wanaagsan waxaan ku faraxsanahay in nolosheena ay dhameystiran tahay waxaan rajeynayaa mustaqbalka inaan wada guuleysano ani xaaskayga sidoo kale Cawaale Dayr oo asagana dabcan ka gaabsanay arintan waxa uu yiri calafka ayaana kala geeyay aniga iyo waliba Najma Nashaadeeda laakiin waxaan leeyahay waan ku faraxsanahay maadaama hal wiil ay hayso marka arintan baraha bulshada ayaa muddooyinkii ugu dambeysay aad loo hadalhay sidoo kale dadka baraha bulshada isticmaal waxay leeyihiin runtii Najma Nashaad maxay tahay sababta ay u kala tageen saygeeda hore ee ninka la yiraahdo Cawaale Dayr laakiin wax kasto calafka haduu dhamaado wax kasto way dhici karaan laakiin waxa leeyahay Bashiir Hanuuniye waa nin markaasi aad u nasiib badan maadaama uu hantiyay gabadhan yar sidoo kale Najma Nashaad oo arinta ka hadlaysa waxay tiri waxaan galay nolol cusub waxaan ku faraxsanahay noloshan cusub aan galay runtii qof kasta waxaan rajeynayaa Soomaaliyeed noloshiisa inay gaar u ahaato marka waxa leeyahay Najma Nashaad oo ku qanacsan tahay waana ku faraxsan tahay arinta ku saabsan in Bashiir Hanuuniye isguursadaan sidoo kale dhawaan ay rajeynayaan in aroos kala kacsan ay ku dhigtaan magaalada caasimadda Muqdisho Najma Nashaad waxay ku sugan tahay magaalada caasimadda Muqdisho marka waxa leeyahay Bashiir Hanuuniye waliba Najma Nashaad oo la wada hambalyeynaya anagana waxaynu leenahay lamaanihii wada nasta oo dabcan waqti fara badan isku hore Allah idin ka dhigo iyadoo dadka baraha bulshada isticmaalna ay leeyihiin arintan runtii waa arin aad iyo aad u nasiib badan marka waxa leeyahay Bashiir Hanuuniye waa qof aad u nasiib badan way hadaawadayaal muuqaalkan haddii aad ka hesheen waxaan ka codsanayaa laakiin aad noo saartaan sidoo kale waxaan idin ka codsanayaa YouTube-gaada leenta 14 in aad subscribe noo saartaan si aan idin soo gudbino dhacdooyinkii ugu dambeysay dhanka baraha bulshada Soomaalida ee aad ka hadalhayaan ugu dambeyntii waxaanu leenahay Najma Nashaad waliba dabcan Bashiir Hanuuniye